ومحي بلوكتشين كوا تكنولوجيا عصرية loo isticmaalo kaydinta xaqiijinta xogta si amni ah. Hadaba haddaan isla eegno sida u shaqeyso blockchain-ku xogta waa la diiwaangelinayaa transaction-ka tusaale qof ayaa lacag u diray qof kale lacag digital ah xogtaas waxaa loo dirayaa shabakado badan oo isticmaalaya network computers loo yaqaan nodes kadib waxaa la sameynayaa computerskaas waxay qabanayaan inay xogtii xaqiijiyaan verification ku sameeyaan kadib marka la xaqiijiyo waxaa lagu dirayaa blockchain-ka marka block hore u jiray waa lagu sii dirayaa halkaas magaca ka hindey block and chain blockchain-ka waa decentralized oo ma jirto meel xogta ama qof maamulaya maxay ahayd cid gacanta ku haysaa ma jirto waxa kale blockchain-ku uu leeyahay in ammaankiisu sareeyo blockchain kasta waxa uu ku xiran yahay wax loo yaqaano hash kaasi oo ka ilaalinaya in xogta la bedelo ama la dhaco waa transparent sidoo kale waxa weeyaan xogta ku jirta blockchain-ka qof kasta waa arki kara ama wax qarsoon blockchain-ka waxa isticmaala cryptocurrency waxa kale oo isticmaala smart contract kale oo isticmaala dawladuhu isticmaalaan codaynta codbixinta waxa kale oo isticmaala amaadka bangiyada blockchain-ku waxa weeyaan waa degdeg markastana waa la hubin karaa taariikhda xog walba taariikhdeeda waa la hubin karaa